kulanti wacan oo wanaagsan waxaan casharkeena caawa ku soo qaadan doonaa grammatika waa naxwaha ama asaaska iyo xeerka afka uu leeyahay. waxaan caawa markaa isdul taagi doonaa ficilka sein waa falka ahaanshaha waxaan ahay weeye waxaan ahay waxaa tahay waxaynu nahay oo kale marka aad leedahay wixii qof markaa dhaqdhaqaaq ama action uu samaynayo ama qof ama xayawaan ama shayba waa ficil ama fal weeye waxaan markaa diiradda saari doonaa ficilka sein ee ahaanshaha. sein siyaabo badan ayaa loo adeegsadaa laakiin waxaynu ka raacaynaa macnaha guud ayaynu rabnaa in aynu soo qaadanno. tusaale waxaynu soo qaadanaynaa ik ben ficilkii waa sein oo ayaad ogeydeen oo asalkiisii u ahaa waxa uu isku bedelay markaad adigu leedahay waxaan ahay ik ben buu isku bedelay ficilkii. ik ben jij bent ta baa raacday qofka labaadna markaad ka hadlayso ama markaad qof sharfinayso u bent aad leedahay. gabadh ama wiil kale markaad sheegayso hey is ficilka dhammaan bentiina wuu iska bedelay seintiina wuu iska bedelay is buu isku bedelay. u fiirso markaa ik ben waxaan ahay je bent waxaa tahay u bent waxaa tahay waa qof aad sharfinayso hey is waxa uu yahay zij is waxay tahay. intaas hore markaa aan soo qaatay dhowrkaa qof aan soo qaatay waa qof keliya waa dad keligooda waxaa la yidhaahdaa markaa enkelvoud markaa waa qof keliya waa ik jij u hij iyo zij waa 5 qof aan soo qaatay oo laakiin waxaa cad markaa inuu qof keliya actionka samaynayo. ik ben dirie ama ik ben jan waxaan ahay dirie magac baad sheegaysaa ik ben baad leedahay markaa ta uma baahna inaad raaciso markaa je bent marka aad leedahay je bent deeqa adigu waxaa tahay deeqa je bent ta baa raacaysa markaa. u bent meneer Jansen waxaa tahay adigu mudane Jansen. hij is gekomen waa uu yimi hij is gekomen. zij is mijn moeder waa hooyaday zij is mijn moeder. ik ben docent waxaan ahay bare ama macallin. je bent de leerling waxaa tahay adigu ardaygii. hij is heel jong waa dhalinyaro waa da'yar waa nin da'yar. zij is oud zij is oud waa qof weyn oo dumara. ik ben boos waan cadhaysanahay. je bent lief je bent lief je bent lief waxaa tahay qof wanaagsan oo qalbi wanaagsan. hij is te laat wuu soo daahay hij is te laat wuu soo daahay. u bent mevrouw Wilo denk ik. u bent waxaa tahay marwo Wilo ayaan filayaa. wahagaag waxaynu u gudbaynaa imikana meervoud enkelvoud baynu soo dhigannay waa qof keliyuunbaa laga hadlayay. meervoudna waa wadar ama jamac dad badan sidaad u taqaanaanba. ficilkii sein ayaynu weli ku guda jirnaa. we zijn waxaan nahay waa dad aad adigu ku jirto. jullie zijn waxaa tihiin waa dad aanad adigu ku jirin. jullie zijn kinderen idinku carruur baa tihiin. ze zijn waxa ay yihiin waa dad idinka maqan baad sheegaysaan ama idin ag fadhiya ama aan adiga iyo inta aad ku jirto aan ahayn. tusaale markaa we zijn cursisten waxaanu nahay dad wax baranaya. we zijn cursisten. jullie zijn waxaa tihiin
Jullie zijn docenten. Jullie zijn docenten. Waxaad tihiin macallimiin. Ze zijn waxay yihiin waa dad idinka maqan ama dad meel kale taagan. Ze zijn heel jong waa dhalinyaro. Ze zijn heel jong waa dhalinyaro waa da'yar. Falka zijn ama ficilka zijn markaad isticmaalayso they innaka jullie idinka iyo zijn ficilkii zijn isma bedelayo waa sidiisii un waxa uu isbedelay markii aad ik isticmaashay ik ben ayuu noqday ficilkii wuu isbedelay markaa ik ben zayntii way isbedeshay markaa ben buu isku bedelay ik ben waxaan ahay je bent ta baa raacday bentii unbaa weli meesha taalla laakiin ta baa raacday qofka markaad ka hadlayso adiga iyo qofka waxa lagu kala garanaya markaa ik ben markaad tidhaahdo waa la fahmay je bent qof kalaad sheegaysaa ood la hadlaysaa qofkii saddexaadna hay ama zay wuu isbedelayaa zay is ayuu noqonayaa ama hay is buu isku bedelayba ficilkii zay is mooi way qurux badanta zay is knap waa qof fahmad leh waa qof caqli wanaagsan knapna ik ben meneer Gahnoeg ik ben meneer Gahnoeg anigu waxaan ahay meneer Gahnoeg je bent deeqa toch qof baad weydiinaysaa waxaad leedahay adigu sow deeqa ma tihid je bent deeqa toch tochna waad ku hubinaysaa ereygaa toch waa erey lagu hubinayo weeye so sidaa maahadiyun weeye u bent waxaa tahay waa u waxa loo isticmaalaa baan nidhi aynu hore casharadii hore ugu soo dhigannay waa qof aad sharfinayso iyo qof aanad aqoon ilmo yar u kuma odhanaysid u bent mevrouw Jamac waxaa tahay marwo Jamac ama u bent mevrouw Jansen waxaa tahay mevrouw Jansen markaa magacii labaad ama akhtarnaamkii baad sheegaysaa qofka mevrouw markaad ku leedahay magaciisa hore ugu yeedhi maysid mevrouwba haddaad tidhaahdo magaca labaad ayaad ugu yeedhaysaa waayo waad sharfinaysaa uudii markaad isticmaashayba laakiin haddii kale waxaad leedahay je bent Patricia je bent Hani je bent Fadumo waa yay baad markaa tidhi markaa magaciiga horaad sheegi kartaa waayo waad istaqaanaan qofkii hij is my docent waa macallinkaygii hij is my docent waa macallinkaygii zij is my dochter waa inantaydii aan dhalay zij is my dochter waa gabadhayda ama inantaydii sidaad u taqaano we zijn wayna kan we zijn ertaa yari macno weyn bay ku fadhidaa u fiirso we zijn haddaad tidhaahdid waxaa la sugayaa haye maxaad odhan doontaa we zijn markaaad tidhaahdo intaa yareed ertaa la maqlo wayna kan weeye ama waanu joognaa we zijn we zijn bijna waan soo dhownahay we zijn waxaynu soo qaadan doonaa ereyga oo inta badan loo isticmaalo waqtiga is waxaa jira imika is een trein die nu gaat naar Deventer waxaad sheegaysaa is waxaa jira is een trein die nu gaat naar Leeuwarden trein ayaa Leeuwarden u socda imika marka waqtiga ayaad ka hadlaysaa xaadirka la joogo was vroeger marka was markaad tidhaahdana waa wax jiray baad ka hadlaysaa is een leven na de dood is een leven na de dood dhimashada dabadeed nolol ayaa jirta is een natuurwinkel in Rotterdam is een natuurwinkel in de buurt waxaa jira dukaan iibiya waxyaabaha dabeeciga ah agteenna is een natuurwinkel in de buurt waa agteenna waa agagaaraheenna waa xaafadeenna is geen geld ma jirto lacagi is geen geld is marka adiga iskama hadlaysid laakiin waxaad leeday waxba ma jiraan is geen geld lacagi ma jirto albaabko kalaa la garaacay qof baad la hadlaysaa
Er is iemand voor u. Qof ayaa ku raba ayaad leedahay. Mam, er is iemand voor je. Hooyo, qof ayaa ku raba. Ama ilmahaagii baad u yeeraysaa. Xasan, er is iemand voor je. Qof ayaa jooga. Ama qof ayaa ku sugaya albaabka hortiisa. Er zijn mensen die niet te vertrouwen zijn. Er zijn mensen die niet te vertrouwen zijn. Waxaa jira dad aan lagu kalsoonaan karin. Wat is er? Maxaa dhacay? Wat is er? Maxaa dhacay? Ereyga markaa waxyaabo badan baa loo adeegsanayaa. La soco. Waxaanu raacaa inta badan ficilkii zijn oo istaa mar walba soo gelaysaa meesha. Waa ficilkii zijn. Je bent er nog lang niet. Weli ma dhadhowid. Je bent er nog lang niet. Het kan zijn dat je ziek bent. Het kan zijn. Waxaa dhici karta. Het kan zijn dat je ziek bent. In aad xanuunsan tahay ayaa dhici karta. Wanneer zal het zijn? Goorma ayay noqonaysaa. Wanneer zal het zijn? Waa goorma, waa waqtigee. Die pen is van mij. Qalinka anigaa leh. Die pen is van mij. Qalinka anigaa leh. Bal u fiirsada markaa sida loo adeegsanayo ficilka. Waxaa intaa inoo raaca caawa mahmaahyadii saddexda ahayd oon iyagana soo qaadan doono. Si aad afka Nederlaanka aad u sii xoojiso casharowle markuu dhammaado waxaan isku dayi doonaa bal in hadallada sarbeebta iyo mahmaahyada Nederlaanka aynu ku darno si ay dhagahaagu u bartaan. Markaa isku day bal in aad mahmaahyadan markaad maqasho aad dhowr goor ku celceliso ilaa intaad ka xafidayso ee aad maskaxdaada ama aad adigu xafidayso. 12 ambachten, 13 ongelukken. 12 ambachten, 13 ongelukken. Waa qof garan waaya jihadu u socdo ama marba iskuul gala kana baxa iskuulkii oon dhammayn haddana mid kala bilaaba farsamada gacanta galo haddana electric barta haddana wax kala barta meel allaaliya meel uu socdo garan waaya. Waxaan u gudbaynaa mahmaahda kale ee iyaduna ah ja en amen zeggen. Je moet niet altijd ja en amen zeggen. Ja en amen zeggen. Oo ah waa qof mar walba isagu wixii amarkii la siiyaba qaata su'aal aan ka soo celin amarkana aan diidin wax walba ya an amen waa macnaha aamiinta waxaa loo raacinayaa mar walba wixii loo diraba isagu amar waxba kama soo celiyo jawaaba wuu qabtaa shaqadii amarkuu qaataa ja en amen. Hij ligt op apengapen haddaad maqasho. Hij ligt op apengapen. Hij ligt op apengapen. Hij ligt op sterven. Waa qof sakaraada. Waa qof dhimanaya oo dhimashadii u dhow. Marka qofku markuu sakaraad yahay waxaa la leeyahay hij ligt ama zij ligt way jiiftaa op apengapen. Waa sakaraad weeye. Intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal maanta barnaamijkeennan. Waxaan haddaan nahay bahda hal maalin kaga tegaynaa dhammaantayo nabadgelyo meel kastoo nagala socotaan.